rajada adduunka la soo gaabiyo ama se diyaargarow qofka muslimka ah uu diyaargaroobo maalinta aakhiro. waxa aan u baahannahay runtii xaqaa'iq dunidan taalla inaynu si fiican u fahamno. ugu horayn xaqiiqada qofka bini aadamka ah, adduunkan waa daaru mamar, waa meel socod lagu marayo. qofka bini aadamka ahi muddo kooban buu joogayaa, mana aha meel nagaadiya. sida ogeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari ku yaalla waxa uu ku tilmaamaya xaqiiqada qofka insaanka ah. waxau nebigu ku tilmaamay khad buu jeexay, square yar buu sameeyey. markuu square afargeesood yar sameeyey ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xariijin ka dhex saaray. xariijinta intii squareka dhexdeeda ku jirtay buu xariiqo yaryar dhinacyadeeda ka jeexay. dabeetna nebigu wuxuu yidhi kani waa bini aadamkii, ajashiisu sidan bay ugu wareegsan tahay, yacnii laabud inuu dhimanayo, geeridu dhan walba way ka xigtaa oo wuu geeriyoon doonaa. xariiqdan dheera arkaysaanee ka baxday dhaabsisan bokoskiira ee uu nebigu sawiray dabadda uga baxdayna waa amalkiisa, raje iyo yididiilo uu qofkan bini aadamka qabo iyo bilaankiisa adduuniya wax uu ka fekerayo. xariijimahan yaryaree hareeraha ka xigana waa mashaakil dunya, acraadiha, waa dhibaatada adduun, oo haddaad tan ka baxdo tan baa ku haleelaysa, haddaad ka maqaxdo tan baa ku haleelaysa. si kale haddaynu u tilmaamno waxa weyaan dunidan waxaa laynoo keenay in layna itixaamoba. waxaynu u joognaa liyabluwakum ayukum axsanu camala, in layna itixaamo. waxay culammadu yidhaahdaan meel laysku itixaamona waa qaabkii ugu fiicnaa. qaab bini aadam imtixaan loo geliyo waa the best bay yidhaahdaan, qofka bini aadamkaa loo itixaamo. haddaba insaanku adduunka kan amalkan tirada badan iyo rajadan tirada badan la uu isa siiyo, waxay culammadu yidhahdaan laba sababood baa inta badan keena, oo ah aljahlu wa xubu dunya. idan xaqiiqada koowaad waa inaynu adduunka u joogno in layna itixaamo. xaqiiqada labaad aynu wada rumaysannayna waxa weeyaan geeri, in dadku dhammaantii geeriyoon doono. waa xaqiiqo gaal iyo muslimba la qirsan yahay. waxaa kugu filan adiga dadkii aad ku abtirsanaysay ama ku dhalay waa kaa horeeya mostly, adiguna yoron dawey, adna waa sallaankaad saaran tahay, waa daba socotaa. si awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala nebigiisii wuxuu ku leeyey innaka mayitun wa innahum mayituun baa ilaahay yidhi. adigu mid geeriyoonaya baa tahay, mayit baa tahay baa ilaahay ku tilmaamay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. wa innahum mayituun, iyaguna waa geeriyoonayaan baa ilaahay yidhi. kullu man calayha faan, dunida waxa kor saaran oo dhammi waa dhammaanayaan baa ilaahay ku tilmaamaya subxaana wa tacaala. wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhuld afa in mitta fahum alkhaaliduun. adiga hortaabaa ilaahay leeyahay bini aadam aan waaris siinay ma jiro. gaaladaa waxay odhan jireen wuu dhiman doonaa, raybal manuun bayn la sugaynaa, waa maalmo inugu qaylinayaa, dani wilivas waa geeriyoon doonaa. ilaahay wuxuu ku tilmaamay subxaana wa tacaala adiga hortaaba bini aadam waaray ma jiro. afa in mitta fahum alkhaaliduun baa ilahay yidhi, oo adugu haddaad dhimato ma yagaa kaa hadhaya, ma yagaa waaraya baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala. idan adduunkan iyo dadka saaran oo dhammi xaqiiqada labaad aynu ognay wax weeye in la wada geeriyoon doono. xaqiiqada saddexaad aan ognahayna waxa weeyaan daarilmamar, waddadan safarka markaynu dhaafno inaynu ilaahay la kulmi doonno, xisaabna waajihi doonno. ilaahay intaad la kulanto subxaana wa tacaala liqaa'a allah iyo xisaab iyo janniya naari inay ka dambeeyaan. sawgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy qul ina almowta aladii tafiruuna minhu
fainahu mulaaqiikum ثuma turadduuna ilى caalimi اlغaybi wالشhahaadة fayunabi'ukum bima kuntum tacmaluun. geeridana ka carcararaysaan baa ilaahay leeyahy. cid walba inaga midaba geerida diyaaru maaha, waa ka baxsanaynaa. marka wadnuuku xanuuna, madaxu ka xanuuna, dhakhtarmee iyo yaa wax tabiiba iyo yaa nafta igu qabta weeyaan, waxaynu la wada ordaynaa. cidina ma rabto inay hore uga baxdo. ilaahay wuxuu leeyahy geeridana ka ordaysaan fainahu mulaaqiikum, waa idinla kulmaysaa. mahma aad cararto waa kula kulmaysaa. uma turadduuna ilaa caalimi اlغaybi wالشhahaadة, dabeetana waxaa laydiin celinayaabaa alla leeyahy subxaanaه wa tacaala, rabbi og waxa muuqda iyo waxa qarsoonba. waxaad qarsatay, waxaad ku fakertay, waxaad keligaa samaysay, wax kasta oo qarsoon, caalim اlغayb wالشhahaadة, ilaah wax walba og baa u tegaysaan. kadibna fayunabi'ukum bima kuntum tacmaluun baa ilaahay yidhi. wuxuu idinka warramayaa markaa wixii aad samayn jirteen oo dhan. waa xaqiiqada saddexaad. markaa dunidan inaynu imtixaan u joognaa waa kow, amalkeennaasi ha iska dheeraado. laba waa inaynu geeriyoonayno, qof waliba geeri la kulmaya. saddex waxaynu leenahay waa inaynu ilaahay la kulmayno subxaanahu wa tacaala, oo xisaab iyo janno iyo naari dambayso. kullu nafsin daa'iqaة اlmowt wainama tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamah faman zuxzixa can الnaari waudkhila اljanna faqad faaz wama alxayaaةu اddunya ila mataacu اlguruur. naf waliba waa go'aysaa baa ilaahay yidhi, waxaana laydiin dhammaystiri doonaa maalinta qiyaame wixii aad shaqaysateen. adduunka waa laga yaabaa camal saalixa intaad samayso haddana inaad kadeedna iskala kulanto. waa dhacdaa adigoo acmaal wanaagsan samaynaya in imtixaanku kugu sii kordho. ilaahay wuxuu leeyahy subxaanah wa tacaala, waxaad shaqaysatay wax kasta ha ahaatee kaa lumi maysa baa ilaahay leeyahy. shaqadaada oo dhammaystiran goobta lagu helaya adduunka maaha. inamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama. naf waliba wixii ay galbatay ama ay shaqaysatay maalinta aakhiraba ilaahay ayuu u oofinaya, u dhammaystiraya. haddaba maalintaas baa ilaahay yidhi, faman zuxzixa can الnaari waudkhila اljannata faqad faaz. maalintaa ninka naar laga fogeeyo ee janno la geeya, warkaasunbaa liibaanay baa ilaahay yidhi. qur-aanka ereyga fawz iyo faa'iziin iyo fawz اlkabiir iyo fawz اlcadiim iyo fawz اlmubiin baa ku soo arooray. intaba aakhiray ku saabsanyin. wax adduunkoo fawz la ydhaha qur-aanku ma qorin. ereyga fawz iyo faa'iz iyo faa'iziin iyo fawz اlcadiim iyo dalika alfawz اlkabiir, alfawz اlmubiin, intaba qur-aanka waa ku soo aroortay. xawaaley 16 jeer bay fawz alcadiimku ku soo arooray iyo kabiirku. intaba aakhira ilaahay kaga warramaya. yacni adduunku kaannamaa wax weynoo la tilmaamaba aanu ahayn. ama guulayso ama guul darrayso, its matter of days. waa maalmo yar oo aad ilaabayso weliba. waxay uga dhigan tahay adduunku qofka bini aadamkaa, maanta waxaad cuntay iminka ma dhadhamin kartaa? cunnadu intay qiimo leeday, intay afka ku jirto. cunnadu hadday afka dhaafto dhadhan ma leh. dhadhanku waa intay afka ku jirto. addunya kullaha waa caynkaa. waxaad soo martay oo nimcoo dhan haddii iminka lagu weydiiyo, it has no meaning. dhadhankuuma leh, qiimo ma leh. waxaad dambuunbaad siladayba mala ka fiican, wixii hore qiimo kuuma samaynayo. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyay, war meesha guushu jirtaa ama guuldarradu jirtaa waa aakhiro. wama alxayaaةu اddunya ilaa mataacu اlguruur baa ilaahay aayadda ku gebagabaynaya. oo nolosha adduunya miyay tahayba bidhbidh yaroo lagu kadsoomo. waa waxuu qofka bini aadamka ku kadsoomo ee maaha wax sii waarayo.